salaadiinta gobolada awdal oo maanta shir jiraa'id ku qabtay gudaha magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay shirkaasi jiraa'id kaga hadleen guud ahaanba xaaladda abaareed ee ka taagan gobolka Awdal waxaana salaadiintu baa ku direen xukuumadda Soomaaliland iyo qurbo joogta gobolada Awdal waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta oo bisha 3 tahay bisha 7 waxaan halkan soo fariisanay qayladaan anagu yeerayno cid kasta oo kusayso waxaan baarsan abaarta haysato gobolka Awdal dhammaantii la isku oran jiray oo maraysa meel ay xoolo tagayn dadna ay ku daba jiraan oo magaalo dhaanta iyo degaan dhaamida ugu jirin waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo dhammaan cidii Ilaahay wax siiyay ka soo jeeda goboladan iyo cid kasta waxaan ugu baaqaynaa qurbo joog in dadkii miyiga ahaa ay abaar 20 bilood iyo ka badan ay haysato 2 sano oo gaadhay abaartaas oo xooloogi ay tageen guryahan ay ku soo warhoydeen waxaan ugu baaqaynaa annagoo Ilaahay baryayna oo Ilaahay horeba hoos joognay maantana hoos joogna baryada Ilaahay marna lagama dhargo ilaahayna ka rajayna gacantiisa lagu dhigay gacantiisa inuu yahay gacantiisii ku keeno ku barakaysan ku keeno oo baaqi ilaahay uu yeelo waxaan ugu baaqaynaa ummadda waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa hay'adda bixiyaasha waxaan ugu baaqaynaa marka oo baatay xambaarsan tahay yeerka iyagaasi xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland in ay dhaaftay meel leeyahay ummadda aan rajaynaynaa inaad sida ugu dhaxsaa badan ummadda lagu soo gudbiyay rajayna waxaan rajaynaynaa hay'adda bixiyaasha Ilaahay baa deeq bixiye hay'adaha ku magacaaban noocaas inay arkaan oo ummadda soo gudbiyaan maaliyaha iyo baaqana waxa weeye warku waa inta la geli kullay dawladdu waxa weeyaan way ogtahay inay abaar iyo dhibaato jirto way ogtahay laakiin waxay ogeyn dhimashada halka ay maraysan ay ogeyn waxay ogeysiinaynaa sida uu suldaanku u sheegay in abaartii la ogaa dhimashadeedii ay dhacday xoolo inay tageen dadkiina inuu ku xigo Ilaahay baana ka cafay waxaana weeye dadaal baa jiro dawlad laga yahay dad islaam laga yahay waxa weeyaan arinta iyada ah waa in si degdega gudoomiye dibadba dawladda dalkeega iyo dadkeega ugu gurmato dhulkuna waa weelkii biyaha samada ka yimaada dhulka laga cabiyo reerashi way kureen biyo la'aan aw lagu aroorto wala way dameer lagu aroorto wala way Ilaahay umba maanta xaalkiisa Ilaahay umba yaa Ilaaha Rahmaanka umba uu cafi kara bidii aadami waxba ma cafi kara Ilaahay baan baryaynaa inuu Ilaahay ummadiisa inuu Ilaahay u naxariisto isku soo wada duubo gobolka Awdal ayaan gabi ahaanba sanadkani ka diin roobkii loogu talagalay taasoo abaarahan ay saameyn ku yeesheen dad iyo dunyaba haba u badnaadaan dadka degan baadiyaha waa nuux kadiye telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Boorama